السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا لها سود دواذا ملك السودن الدافية ذيك السجنتين وند السلام يا مركو جوهر السئلة هيبقى مهله إلى هوين واحد كعسى وشلاء ذكي يدل كرسيبا مهله مركز حكتنا إذن كأيان إذن مهد نقيا سود دواذا بند الله رمضان مبارك أيام إنه جهر رمضان تي إلى هاي نوجرسي عافي ماد iyo cibaado suuban ilaahayna haynaga dhigo kuwa ka faa'iida inta laga aqbalay liiska xagga hore lagaga daray ilaahay haynaga dhigo isaga weyna waaxida casa wajallaahi ilaahay haynaga aqbalo ilaahay cibaadada haynagu sugo walaalahay oo soo dhawaada baan idin leeyahay minankeeni waaye barnaamijdeeni taxanaha ahaa ee qisaska iyo taliyada ahaa ayaa halkii inooga soconaya insha Allah bismillaahi kariim barnaamij cusub insha Allah ayaan ku soo kordhinaynaa bisha tan Ramadaan hadii ilaahay ka dhigo barnaamijyadii hore oo aad uga heli doontaan ayaan maaragtay ku soo kordhinaynaa insha Allah bismillaahi kariim qadarka bisha barakaysan inoo socon doona hadii ilaahay ka dhigo inta haddaan ka gudbo walaalaha cusub waxaan leeyahay iyagana fadlan bilasxaanak subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ka iyo comment-ka caafimaadka qaba intaba nagu caawiya insha Allah tabarakallah intaba nagu caawiya walaalahayow insha Allah qiso ayaan inoo hayaa yar oo kooban qisadan waa qiso maaragtay weli lagu sii jiro oo maaragtay aan laga wada bixin oo bar lagula jiro laakiin de wax ku qaadasho iyo wax ku ool bay kulli wada yihiin qisooyinka aan noo soo deynayo dhan waa wada ogtihiin waa qisooyin maaragtay wax ku ool laho aynu doonayno inaynu ka faa'iidno qof kastaaba ama uu sameeyo ama uu samayn doono ama hadda sameynaya falkan ku guda jira in uu ilaahay dartii maaragtay uga baxo oo uga hadho ayay qiso waliba xambaarsan tahay macnaha loo soo deynayana ay sidaa tahay wax ku qaadasho wax ku ool waayahay qisada inoo guda galo gabadh Soomaaliyeed bay la soo xiriiray gabadhani waxay tiri anigoo Afrika jooga meel kamida oo maxay ahayd reerkayga la jooga ayaa waxay tiri alxamdulillah rabbil caalamiin baan joogay ilaahay mahadi baan joognay reerkayga baan la noolaa bale ay haysataa ma aysan jirin oo bale ma qabin bay tiri nimca ilaahay baan iskaga jiray maalin maalmaha kamida ayaa qof family-gayga ah oo family-gayga dhow ayaa reerkayga la soo xiriiray wuxuu yiri waxaan doonayaa gabadhaas inaan maxay ahaydey aan fiisa u soo saarno oo fiisa ku keeno oo de ay maxay ahaydey wax halkan de aan joognay wax ka barato kana shaqaysato de maxay ahaydey markaas sidaas ka warrama waayahay baa la yiri waa la isku gacan qaaday waa la isku afgartay waxa la yiri waayahay de maxay ahaydey dhibaato ma jirtee hadii de idinku ay idin suurtagal tahay oo aad soo dhoofin kartaan oo fiisahaas aad u soo saari kartaan yani fiisahii qaxoontiga ahaayee qof la isku dalban jiray ma hay laakiin waa fiisayaashan kale qofku ama gabadheeda ku soo saaro ama walaalkay ama walaashay ama hooyadii qof business leh oo kale qof shaqo hersare oo kale haysta oo ku soo saaro weeyaan waayahay fiisihii baa loo soo saaray inantii waa la soo dhoofiyey waxaa la keenay wadankii markaa fiisaha looga dalbaday alxamdulillah rabbil caalamiin waxay tiri reerkii baan iskala joogay ila reerkoodii way ka timiyo family-goodii dee hooyadii aabaheedii walaalaheedii dadkoodii way ka timi dadkan kale family-geedan labaad ee kale u timi family-gii baan iskala joogay bay tiri in muddo baan la joogay markaan waxay tiri la joogay family-gii ayaa waxaa dhacay bay tiri dee waxaa la rabaa qofkii marka la keeno inuu dee dadka isku mid maaha qof waa qof dee xilkii qofkan uu qaaday garanaya qof waa qof maaragtay bay tiri doonaya inuu kugu shaqaysto qof waa qofba dee sidii ilaahay u abuuray iyo dabeecadiisa weeyaan iyo garaadkiisu intuu la egyahay weeyaan dadka keena ay tahay qofba maasha Allah tabaarakallah oo xaqi iska duwo wanaag garanayo oo maxay qofkii uu keenay de dhabarka u ridanayo ilmihiisa kale ka soo qaadaya qofna dhulku jiidayo wuxuu isleeyahay de ku danayso ku shaqayso oo maartay de qofkan ka gooyntii aad ku keentay laakiin dadku isku wada mid ma inta wanaagsan baana badan anigu baan ogahay waxa marka waxay tiri maxay ahaydey waxa la yiri de lady dhexda xidho baa la yiri fadhida aqalka ka shaqee waxay tiri aqalkaas intaas qof baa jooga waxay tiri de dhexdan xidhe aqalkii baan muudsadaa cuntadan kaliya shopping-kan doona waxay tiri de waxa jabi helay halka iga qabsaday aan ba iska kariyay bay tiri de markaan Afrika joogay ba cuntana waan karinayay wala xalay gurina waan ka shaqaynayay aan ba iska joogo dhibba ma lehe waxa bay tiri waxa iga daraa waxbarasho maan haysanin oo leeyma geenin de leeyma soo saarin sharci qofka waa in loo soo saaro de fiisa ku joogi miisda weyn de passport heshood ku baxdo oo de maxay de passport lagu xireeyayo dhag laga dhiga waxay tiri marka dadkii keenay qof baa madax office loo ahaa qof baa de ugu weynaayo mas'uulka ahaa qofkii ugu weynaayo mas'uulka ahaa ayaa
iga fadhiistay in laysoo saaro baasaboor oo dee sharcigii weynaaye dalka aan qaato waxay tiri dhagax waa dhagaxiyatum ayuu igaga dhigay bay tiri waxay tiri waan iska samray waan iska aamusay waxay tiri iskuul yar baan isa soo qoray markii dambe bay tiri dee aan arkay sheekadu inaanay dee soo gadangadcaynaynin ayaan college iska tagay meel baan iska soo qoray gurigaasaan ka shaqeeyaa waan maxay daa reerkaasaan u khadaamadu ahay bay tiri waa western wallka ayaan khadaamadu ahay bay tiri reerkaasaan u shaqeeyaa waxay tiri maalintii dambe ayaa idhisan kuma anfacaysee tasho gabadh baan u tegay gabadhii markaan u tegay ayaan ku iri walaashay saas ay haysato dhibkaaga markaasaan ku jira maxasaan uga baxaa naa waxay tiri bii waaye dee waxaa laynaga rabaa caqlaa laynaga rabaa waxay tiri markaabay tiri gurigii reerka habeenkii waan ka imi maalintii un baan tagaa habeenkii waxaan la joogaa markaa gabadhan aan la tashanayo subaxii baan u tagaa waan usoo hagaajiyaa cuntaan usoo kariyaa waxbaan usoo qabtaa markaa waan iskaga imaadaa bay tiri waayahay warweeye waxay tiri sidan sidii u ahaa waan kasoo tegay magaaladii joogeen magaalo kale aan imi magaaladii kale markaan imi waxay tiri waan ashkatooday waan lawyer baan qabsaday lawyerkii markaan qabsaday arrintaydii oo dhan baan marka waxay tiri muddo dee dhowr sanadood baan joogay bay tiri arrintaydii oo dhan baan u sheegay lawyerkii baa ii xiriyey sharcigii qofkii markaa ii soo saaray ayaan ku yiri dee maxay ahayday walaalow waxaan rabaa inaan dee baasaboorkaygii sharcigaygii wani aan qaatay dee ii dhammee hawsha iga dhimano waxay tiri aan sasabtay ilaahay baa ii sakhiray wuu ii dhameeyey marka qofkii madaxda u ahaa reerka markuu ogaaday bay tiri in aan sharcigii helay ayay horta block iyo delete suu kay dara buqduu guray bilaayuu dhigay waxaa seeba loo gabadhan inay gurigan ka shaqayso reerkan u khadaamtaan u keenay say maxay ahayday in loogu soo saara ilaahay ma kadin bay tiri ilaahayna ima baahine waxaygiyo istu saaran ayaa ilaahay farta iga saaray waxay tiri maxay ahayday waxaan sameeyey bay tiri waan guursaday bay tiri markaa aan dayagii ka imeen magaalo kale gala imiyay aan shaqaystay aan maxay ahayday isla magaaladii ay joogto baan wadankii la keenay magaaladii ay deganeed magaalo kaloo lamid baan degi bay tiri waan shaqaystay college baan galay afkii baan meel saaray waxay tiri shaqaan dhexda u xidhay allahuma salli calaa maxamed waxay tiri dee alxamdulilah rabbilcaalamiin aad baan kala degay bay tiri nin baan guursaday inan baanu sheekaysanay inankii markaanu sheekaysanay waan isguursanay ilaahay ubad buuna kala siiyey nimcada tii ugu dambeysay baan maartay ayaan ku jiraa bay tiri maan aflagaadayn bay tiri reerkii keenay dhibaato iyaga dee maan dhibaataynin maan sheegin laakiin bay tiri nabar baa halkan iga yaalo reerkii qofkii madaxda u ahaa ma wada hadallo oo salaanta iskama qaadno mana raba bay tiri inaan salaamo inaan la hadlo inaan cafiyo ma doonaya bay tiri sababtaanan u doonayn bay tiri inaan cafiyo qalbigayga habeen iyo maalin ay ugu soo dhacdo ubadka aan dhalay bay tiri waana qof faamiligayga wax run ayay abay tiri ubadkayga may arag meelaan jooga may arkin wax allaale waxaan ahay iyo waxaan ku suganahay may arkin yacni waxay tiri waxaasoo dhan aniga qalbigayga aan ka go-aynin bay tiri dhasa maanta bay tiri waxba yay arkin ubadka iyo waxa aanay qalbigayga ka go-ayn bay tiri oo aniga qalbigayga haddaan salaad isku taago kusoo dhacaya oo haddaan hurdo kusoo dhacaya oo haddaan suuqa aado kusoo dhacaya yacni xifaaltanka sidii ay ii keentay ee wanaagsanayd ee lay keenay ee wanaagsanayd iyo sida layga daba qaatay layla xifaaltamay ee layga dhigay qof haddana shisheeya anigoo faamiligii dee qof ka mido jirhkeediiya haddana layga dhigay la damca in dee laygu khadaamto oo aan guriga ka shaqaysto uga shaqeeyo oo cuntada kariyo aanan dee tallaabo kale qaadin taasaa aniga bay tiri aan u qaadan waayey marnaba aan u qaadan waayey oo qalbigayga aan ka baxaynin run ahaantii anigu waxaan ku iri ilaahayba weyna cafiyaayo intaasoo dembiyaynu gallaa ee iska cafiyo iska saamax waxay tiri markaa waxa soo kiciyey iila soo hadashay waxay tiri telefoonkaygii bay hadirta raadinaysaa oo leedahay waxaan doonayaa in la heshiisiiyo waxaan doonayaa inaan cafiyo balaa ayaan maxay ahayday bay tiri aan hadeerto ay raadinaysaa sidaa darteed baan cashay kula soo hadlay yacni dee aan yidhaahdo dee rabaa inaan dee walaalaha yidhahdo maxaan sameeyaa marka horta ilaahay wax wuu cafiyaa wuuna cafiyaa 24 saacadood dambi baynu ku jirnaa qof muxsin oo meel fadhiyo dee waa u malayn maayo dee oo insaani hadduu jirana waa 1 iyo 2
intaan dambi baynu ku jirnaayo de ilaahay intaasoo dambiyaynu galaa ilaahay wuuna cafiyaa wuuna saamaxa oo intaasoo dhan ilaahay dee qofka ugu fiican waa qofka yidhahdo ilaahu dambi baan galay saamax intayna ka badanina maba oginba oo intaa inagoo shabta ku hayna dambi baynu hore isaga sii soconaynaa almuhiim inantaana waxaan ku yidhi iska cafi cafallaa camaa salaf ilaahay ba wuuna cafiyaa iska cafi cafin kari maayo bay tiri qalbigayga kama sii dayn karo maba rabo bay tiri dhegahaygu inay maqlaan markii la yidhi telefoonkaagii raadinaysaana waxay tiri dacartiiba laqanyo horaa la kicisa laadaadii horaa la kicisa meeyahed laqanyo horaa la kicisa bay tiri oo laqanyadii larkiiba saayibu laba qarxaya mama arki karo mana maqli karo maxay ahayday in maxay ahayday aan cafiyo daaye iska daa inaan cafiyo inaan maba arki karo I don't want to see them dhegahayguna inay maqlaan maraba markaa sidaas darteed ayaa waxay tiri aan laqanyadaas ii haysaa ladaadyadaas ii haysa aanay iga degaynin maxaan yeela yacni waa iska talo waana maxay ahayday qiso ku wax qaadasho leh maxaan yeelaa dee anigu iska cafi baan ku yidhi kule idinkuna waxaan rajaynaya inaad tirahdaan maxay ahayday soo cafi adiguna iska soo cafi waana bishii rabadaani barakada barakaysnayd baynu ku jirnaa inkastay tiri dee intaasoo kunoo bilowdo rabadaan baa soo dhaafay bay tiri intaasoo dee rabadaan yacni kun maaha dee intaasoo rabadaan tiro dee ilaa 10 rabadaan gaadhaysa ayaan soo dhaafay bay tiri oonan cafin markaa tanna waa mid ka mid uun markaa iska cafi baan anigu ku yidhi idinkuna iska cafi aad leedahay rabadaan baa lagu jiraa bishii barakaysnayd baynu ku jirnaa bishii ilaahay inuu cafiska weydiisanayno inuu ku jirnaa inkastay markasta tahay ilaahay inaynu cafis weydiisano mar walba ilaahay cafisa inuu weydiisano way ku soo dhoofisay way ku keentay dalka qofkaasi wuu ku keenay ama wiil ha ahaado ama gabadh ha ahaadee wuu ku keenay markaan wuu ku keenay leedahay dee ha u qaadan inay gabadh tahay laakiin afkuun baa iska bartay wuxuu doonaba ha ahaadee ama wiil ama gabadh qofku doonaba ha ahaadee waa lagu keenay qof faamligaagiya wuu ku keenay waxba ma laha carab iyo labadaan baa iskugu dhow dadku way isqabtaan labadii isdhalay baa isqabtaan labadii maxay ahayday isu dhaxay baa isqabanaya labadii walaalaha baa isqabanaya labadii ilmaadeerka baa isqabanaya waa la isqabanaya haddana wanaaga adigu ay ku asxaantii koobaad ay ku fidiyeen uun ka raac oo maaragtay mar hadday ku keeneen oo wadankan ku keeneen oo wadan opportunity lagu keenay oo aad ilmo ku dhashay oo aad wax ku baranayso oo ku shaqaysanayso thank you ku dheh intii aad geysateenna allah ilaahay idinka cafiyo ilaahayna hayna kala saamaxo anigu intaasan kugula talin lahaa inay yahay dadka maaragtay dadka keenana waxaan odhan lahaa adduunkani 4 cisho weeyaan waxba laga qaadi maayo inkastoo dadka intiisa badani ay wanaagsan yihiin run ahaantii dadka la keena baaba ay barakada ku badan tahay ay tahayo dadka la keeno intooda badan ay dadka dhibaateeyaan dadkii keenay dhibaateeyaan yacni qofku keenay oo maxay ahayday wanaagaa kuu sameeyey inaad adigu haddaadan waxba ku taraynin afkaagaad ka haysatid baa muhiima laakiin maaha inaad dee isagii dib aad maaragtay hub culus ugu isticmaasho taasna waa laga fiican yahay haddii aydan heshiin karaynin oo aydan maaragtay isfahmi karaynin ama family ahaada ama de si kale isqaba adigu de family baa iskeene family ahaada ama maxay ama family ahaada ma ha ahanin laakiin qofka ku keenay adigu hub culus dib ha ugu isticmaalne haddaadan waxba ku tari karaynin afkaaga ka hayso wanaagna ha idinka dhexeeyo hadday ku xumeeyaanna ilaahay dartii u saamax waayo waxay ku qabteen baa ka weynba macna ma laha waxay ku qabteen baa ka weyn hadduu qof nin ku keeno iyo hadday gabadhi ku keento waa isla halkii marka maxay ahayd jaaniska lagu siiyey ka faa'iidayso dadkaaga ku keenay ehelkaaga iyo aqrabkaaga ana dee wanaag kula dhaqano dee maaragtay wanaag iyo wax wanaagsan ha idinka dhexeeyaan salaanta islaamka iyo ixtiraamka iyo sharafta iyo respectka ha idinka dhexayso haddaan wax kale la isku taraynin ilaan ilaahay ba qofba dabeecad gooniis iyo dadka dabeecadiisa aan baabal heshiino kaada dhashay baabada la heshiinayn marka anigu waxaan idin leeyahay labada dhinacba waxaan leeyahay qofka keenaya maxay ahayd isaguna xaqa ha iska duwo qofka la keenayaana iyo ku dambaabirayna qofkii keenay isaguna wanaaga iyo sharafta loo keenay ha garto intaasaan idinkaga tegayaa talooyinkiinii waan wanaagsanaa baad soo siin doontaan insha allah bidmillaahi kariim waana ila tali waana qiso laakiin qisay u badantay qiso ahaan bay igu soo sheegtay aniga markay inantu ii soo sheegaysay hase yeeshee mar hadday tiri cafis baa igu taagan dee waxaan leenahay iska cafi ilaahay dartii ku cafi baan leenahay intaasaan idinkaga tegayaa walaalahayo rabadaan mubaarak ilaahay haynaga aqbalo sidaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh